بسم الله الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. waxaan wax ka tilmaamaynaa التعزية tacsi islaamku muxuu u yaqaanaa mase iswaafaqsan tahay Soomaalida tacsida waxay u yaqaanaan iyo sharcigu wuxuu tacsi u yaqaan tacsi sharcigu wuxuu u yaqaanaa Soomaali ahaan hadii la yiraahdo tacsi waxa waaye sabarsiin qofka hadii uu dhinto dadka uu ka tagay in dadkaas la sabar siiyo qofka haduu uu dhinto qofkaas dhintay sharcigu masaalixdiisu ilaaliyay oo dadka waxa waajib ku ah qofka dhintay in ay loo qubeeyo la karfaniyo lagu dukado lana duugo waa fardu kifaaya la yiraahdaa qofkaas dhintay xaq oo islaamka dadka oo ku leeyahay oo hadii aan dadka dhan hadii aysan afartaas aan loo sameeynin ummadda dhan waa dambaabaan fardu kifaaya la yiraahdaa hadii laakiin qayb kamid ay sameeyaan waa ka dhaca dambigu marka afartaas shay qofka meedka uu waajibay oo ilaahay xaq oo maaratahay oo siiyay way qofka dhinta muslimiinta dhan inay us qabtaan ah qofka marka uu dhinto oo loo sameeyo afartaas walxaato loo farad yeelay dadkii uu ka dhintay waxay xaq u leeyihiin ayaguna in la sabar siiyo oo la faansiiyo musiibada ku dhacday ajir fara badan inuu leeyahay oo musaa'ibka lagu sabraaho ajirkooda inuusan ilaahay subhanahu wa ta'ala ma cid kale ajirkooda ogeyn inama yuwaffa saabirun ajrun bighayri hisaab ajirka la oofiha ilaahay ma cid kale insan ogeyn ajir fara badan ay helayaan oo marka qofkaas in la xasuusiyo qof walba inay dhimahe laga sabar siintaas la yiraahdo tacsi tacsida marka qaabkaas ah qofka sameeysa rasuulku wuxuu noo sheegay sallam ajirka ay heshay qofkaan oo kale inuu asan leeyahay man azza musaban kana lahu mithlu ajrihi qofka u tacsiyay qof dib ku dhacay ajirku qofkaas helay ayuu kale leeyahay sababta qofka hadii inta laga dhinto oo sabraaho ajir fara badan ilaahay soo siima sabarka dartii Allah ku siimayo qofkan u tacsiyayna oo sabar siiyayna ajirkaas oo kale leeyahay xadiidka wuxuu ahaa min mu'minin yu'azzi akhahu bimusiba illa kasahu Allah min hulal al-karama yawm al-qiyamah qofkaas wuxuu tacsiyeeyo ilaahay wuxuu u libisaa libis karaameyn ah libis karaamo ma min mu'min majaa rasuulku leeyahay oo yu'azzi akhahu walaalkiis u tacsiyeeyo bimusibatin musiba oo tacsiyeeyo illa kasahu Allah ilaahay ayaa artiro u libisa min hulal al-karama libiska karaamada xadiithas hadii la sugeeyo darajo xasan ligayri gaaraan laakiin xadiith sanadaha waxba laga sheegay hadii la sugeeyo xasan gaarayaan oo xataa rasuul laftiisa sallam dadku oo tacsiyay jiray qof haday dhimato wuxuu dhihi jiray yarhamukallah wa yajlaa kun xariisto ilaahay ka ajir siiyo ayuu dhihi jiray marka qofka markii hadda ka hor saxaabiyada ay soo cidirtay tirwiilka ayaga sakaraada wuxuu yiri waxa ku tiraahdaa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta ilaahay ayaa askale wuxuu qaatay asagaan askale wuxuu u baxshay oo kullu shay cinda bi ajal musamma shay kasto waqti uu leeyahay macna rasuulka dadka u tacsiyay jiray oo waa sabar sii jiray macna مثلا قفك كله وحلو الدعاء وحل أعظم الله أجرك الله ويني وغفر لميتك ميتك الله دم دافو تعسيد أصنع عاصه قفك صبر سينتا وحلو صبر سيها قفك الفات جاره أي قصبتها مجره تعسيد أن جودها وقف كان قلبي يسين لدجيو كل نفس ذائق موضين ولا مهايان لا دم الضانة إلهي إنك صبر سيو يعني قف كستو وحي معناها الفاضي أو قف كان لجود دجكره مركت لغة يراي كره تاسع تعسيل إلى هذا لكن لفظ جاره قف كاس إنه يراي قصبتها
ما جرت ابن قدامه العلامة ابن قدامه حديه جرى يستحب تعزية أهل الميت ولا نعلم في هذه المسألة خلافا فليس في ألفاظ التعزية شيء محدد يعني إنه قفك أنت لو تعسيها خلاف كم يجري هرت وين لو تعسيها أو لو قلبي ويناه أو لا صبر سيا تعسوا نوع شرع أساس ويقانا ألفاظ جارة أو أصقناتنا ما جرت ولا إذا تعسيد الشرع ويقانو وكد وانت هاي صومالي التعسيد أي تقانو صومالي التعسيد وحيو تقانا قفك دنتي أو ميت كيس مركو دنتو حول الله برايو صب الله سمايو تعسيس ويقانين مركا إن ميت كاس الله براينا شرع وكدقي سجود هان وحبرينتو وعبادة وحياة إلى لو هذا واي مركا برينتا لبرايا صدح قيب وقتها قيب شرعي وإله لوgu dhawaado qayb mubaaxa iyo qayb aan banaaneen saddexdaas oo qaybsanta waxa la bireeyaa saddexdaas oo qaybsan waxa Ilaahay loogu dhawaado wax asalka iska mubaaxa iyo wax xaraama marka waxa bireeyo meedka wax loo bireeyaa marka saddexdaas qaybkii ka tahay la moogtahay tacsi anagu waxa u naqaanaa xoolo bireynta tacsi sharciga waa mid aan toon sheegno qofkaas oo la sabar siiyo waa ورسولك أو سمي جري قفك سمين وأجر فبين ليه حاجة وحبرينتي لين عيوجا جرتها إنه ميت وحلاب برايو أما جورجيس وحلوعنا أما الصبت الله سمايا سد حدث قيبات إلا برين سد حسي كلا تهانري إنه وحن برين شرعي يمد أصل كسكب بنا يمد حرامة كي كسو قلي برين تا شرعي ذبح مشروع هو وحاكم إذا أضحية إنه حول برايو ciidweynta xoolo biraysto waa cibaado mashruuca Ilaahay loogu dhawaado oo rasuulka uu sameeyay sallallahu alayhi wasallam si anas dhigi jiray wuxuu dhigi jiray dhaxa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bikabshayn amlahayn dabahuma biyadihi rasuulka ayaa udxiyeystay oo gacantiisa ku bireeday laba wan oo ayuu bireeyo waa waliba xataa wuxuu dhigi jiray sama wa kabbara bismillah wa Allahu akbar asoo bireeyo rasuulku wuxuu Madiina joogay 10 sano saxaabadu waxay noo sheegeen 10 sano oo rasuulku Madiina joogay inuu udxiyeysay jira macnaha waxa biray jira idan in la udxiyeystaaho waa gowrac Ilaahay loogu dhawaado waxa kale oo gowrac Ilaahay wax la bireen xoolo la gowrac loogu dhawaado hadana waxa loo hadiyeeyo xarabka marka qofka xajihayo saogsantiin saddex xajku waa saddex qaybood xajka inuu yahay qiraan ama tamattu ama ifraad oo mesela ama qofka umradii iyo xajka uu isku daro xiriiriyo ayo inuu marka inta umreys kadib uu xajiyo iyo xaj kaliya sameeyo saddex la kala qaada iska rabtad ku xaji kartaa naarta ku xaji kartaa marka aad xajka ka dhigato marka qiraan ama tamattu ka dhigto waxa laga rabaa xoolo birayn oo Ilaahay loogu dhawaado leeyahay hadi in xoolo inaad u hadiyeyso xaramka xoolaha taasna waa iyaduna waa برين إله لوجود وعده ومشروعه وحيابها برين إله لوجود وحاك كم إذا قفكم مركي إله سبحانه وتعالى المكسية إن ما أنا تضبط إحنا بريسة حقيقة لا وغلش حرام وغلش أيضا وحيله ومشروع واي ما أنا تضبط بري أم أفريق طمانات ولا تيكم كهرت ده والصنة لو بهاي قفكم مركي إله الكسية صنة نبي إبراهيم قصة بالله بتواي مركي إله الكسية إن الحال بريسة أنت مشروعه إنها سعلون كل شيئان وحاجة جورع مباحة أصل كيس مباحة مثلا مركز حوالات مثلا بريسوك لأن ما تيسي قديسة وكو قراءة حوالات إنها عنطاد بريسه ومباح سيدوك الانتفاع عليه الذبح للانتفاع عليه هذا سيدوك بيع جنع السيوك لأنه بريسته واللعبة هي ومباح مرتقلين ضيافة إن أنت كوي ما الحلو بريسته ومباح واللعبة هي أراس ضدقيل الوليمة أولم ولو بشات حول برايا اللي يريبها نغطيه والذبح المباح عليه هذا إنهاس وأنت مشروعة مباحة وحاجرة جورع أو ما نتاي حاران ورسولك يقول لا من ذبح لعن الله من ذبح لغير الله إلهي غير كيس عدو بريسة نعلتها كل عضو الشرك هو مركز دي مثلا قبر بريسو أما الصنم أبليسو أما أولي أبريسو والذبح لغير الله لا يقيد كيس وحان إيه وحلو بريوا وأنا قال نمو
قل إن إلهي قل كل رسولك الله إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له صلاة دكها إيه حولا أن بريها إيه نلاش يدي دمشي لمن الله أسكله عدل لما جرت إذا ميت حلا برايا يقبر حلا برايا وشرك إلهي غيرك سبحانه برايا نوقع علمه إله ورسولك وأنا على حوالها مركب ميت كالله برايا غيبت السوق رسولكم حونا شيء إنه من أمر الجاهلية يعني رسولكم مركب لسه سارايي تدكو جاهلية كسبنايان حاجري جرت عادة رقم كمية هذا قفك هدي أو لنتا وحي حوالي بري جيران وحي ليه جيران سيد الإمام الخطاب يقول لي حي ليه جيران نجازيه على فعله أدوم مركو جونين كانن وحلب وهاي نين وحصي وهاي فعل كيسان كو أمال مريهينا marka qof kasta oo dhimato oo adduunka wax ku bixi jirta loo biray asaas ay jireen qaybna waxay qabi jireen waxay dhaheen مثلا qof haduu dhinto hadaa xoolo loo biray maalintii qiyaama cagalo ku uma dhihi jireen fikrad ay qabeen ee jaahiliyadu markaas waxay dhihi jireen si oo u yimaado inuu faras soo saaran ama rati saaran aan geel u barayno ama wax xoolo loo barayno xoolo wax qaaliya aan u barayno islaamku markuu yimid marka rasuulku wuxuu la aqra fi islaami حول برينتا نوعاس إسلام كميد ماهن ولا ديدي إذن قف مركو دينتو حول الله بريا هو جاهلي دو حسامي جان رسولكم وديدي إذن شيء أن تعسيد أنك نقانا مرك أسل كيسة مركو حكي مدي جاهلية رسولكم وديدي هو حرام معناه بل صحابة وحيده جيران إن حول ميدك الله برياه ومن النياح نياحة أصل كده إسلام وديدي نياحة محاليرا نياح حواي نميت مركو دنتو لو برورو لو اوي وا وراي با لا بايستو لا قيليو لو اويو عد لا بخشو رسولك وحو دي جراي قف كسميا ميتكيس حتى والعذاب الميت يعذب بالنياحة عليه برارته الله برارها يا ميتك قف كدنتيو ولو عذابه وكيل ليس منا من لضم الخدود وشق الجيوب انا كان ما بنغمد اهمبا عيدا markii laga dhinto dhafoorada iska garaaca oo dharka iska jaxjax anaka mid ma aha marka waxa qofka waxa sameeyay xaraan oo ku dhacay meedkeen dib u gaarsiiha oo xadiidka wuxuu innal mayyita yu'adabu bi buka'i al-hayy meedka waxa loo cadaabaa dadka nool ooyinta oo yaayaan aqeylihayaan macnaha ooyinta la sheegayo waa mid qaylada ah ama mid oo qofku inuu ilmeeyo ah waa رسول كل تركي صلى الله عليه وسلم ويجري وكيل يجري إن الله لا يعذب إلهي عذابه بدمع العين إلهي عذاب ما يضدك المعنى الميهايان ولا بحزن القلب قلبي مركتيس رسولك سعد من صحابي مال ويجي النبي ويا يقف دنتي مركز رسولك الله حيث ساتنا مركز إن رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء وأن حريص إلهي قلبك قفك إلهي دون قلبك يسدجيه قفك مركا دور دنتو إن لا دنتو المكان دنتان وارد كاد دنتو ولا لا كاد دنتو قف أجعش أو كاد دنتو إن لو إياه وأن حريص نحريصنا رسولك حوي إنما يرحم الله من عباده الرحماء إلهي وحونا حريصتا عباديس الضميس كون حريصتا بدن مركا أوينتين لو إياه المكاتم هذا ولو باهية إنه لو مرقود ولو باهية مثل الديدة وحواي ولا ليه ميتك ولو عذابه وقيلده علماء مركب حيدهن إلهي وحول ليه ولا تزر وازرة وزر أخرى قف دنبك الله مسار حديث كان مركز سيلو داويها ولا ليه قفك هدي لو يقفك له عذابه قفك أسوء أو قيلية هل عذاب أسيق دنبك سلقري وقف مخالفة شرعية لي مذوى لكن قفك كالمحوق لبصد إمام النووي حول جدا قف كان وقف كدر دارمي أدونك أنتو جوغي هلي أو ييري أبي جعفر الطبري إنه وحول ليه هاي ميا وحلوجة جدا قف كان مركي قبل الجليو واتن نفتا لوسي عليها دتك أويا أيا لو حنوجها ولا تصا السجع لو حنوجها سال دتك أويا فيري لأن حساب فرت على مرجي سوا مركت الله صيب بدها ولا لو حنوجها إذن أوينت لو أويا ميتك السجع قفكي أويا ندم بيكوت هاي معناها القيلة وقيلة أيراه إن العلم ولا بهين لكن قيل أنت القيل هاي
oo maaragtay codka kor loo qaadayo asiga dambi ku tahay qofkii oo dhintana dhibay u keeneen marka niyaaxadaas ayay salaf ku dhihi jireen oo baroortaas waxaa kamid ah dhihi jireen xoola binanta la bareey meesha uga socdaa niyaaxadaas marka baroortaas qofkaas dhinta loo qaylihayo waa min amri jaahiliya ay laftirkeeda ahayd oo ummadaana inaysan ka tagin rasuulku sheega yani rasuulku mucjizaaskiisa waxaa kamid ah ummadda waxyaabaha aysan ka tagaynin horun jiri jiray markuu sheegay wuxuu arbacun fi ummati min amri jaahiliya laa yatrukuhunna afar oo jaahiliya samay jira ummadeed ma iska dhaafayaanba waxaa kamid ahayd alfaqru fi lansaab inay macnaha oo lagu faano qabyaaladda ano reer hebela الطعن في الأنساب إن في الأحساب الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب إن الضرو قبيل كله رهبا محييين كواس لانقابت أساسه كله وحيابها أجري جروا ومضي سكت تجينين وحكم إذا وحيا مضي سكت تجوا شيء الاستسقاء بالنجوم وحكم إذا النياحة ليش أقول سعداء إن الله برر تميتك إن الله قيليو لؤي ومضي حتى كتير ميس مركا صحابة مركا waxaan niyaaxadaas kamida oo meedka loo ciqaaba oo qofkan uu dambiile ku yahay dhihi jireen al-ijtimaac ila ahli al-mayyit in dadka inay isu yimaadaan oo meedka ahlkiisa gurigiisa la isugu yimaado oo meedka laga dhintay gurigiisa la yimaado xool lagu cuno oo badar lagu cuno bacda dafni min niyaaxati Jaabir ibn Abdullah Bajal ayaa dhaha yani baroortaas oo meedka loo ciqaabayo waxaa kamid ah dhihi jireen u naqaan saxaabada ogow waxay ka soo baxeen jaamacada rasuulka fahamka ayaka rasuulka wuxuu fahansiiyay sharcigan saxaabada sharcigu waa rasuulku wuxuu dajiyay maxaan ku iraahdaa ilaahay wuxuu noo soo dajiyay rasuulku noo sheegay waxaana fahamka ka qaadayna dadka uu rasuulku wax baray idan niyaaha saxaabadu waxay noogu fasireen meedka gurigiisa xoolo lagu bareysto xoolo lagu cuno waxay dhawaa baroor waa niyaaha waa lagu ciqaaba macnaha xoolaha biraanta la birahay wanaaj dadku waxay u fikeen wanaaj uga jeedaan laakiin saxaabada san ka baranay waa ciqaab imaam shaafici wuxuu dhihi jiray aniga waxaan nacab u dhihi jiray wa akrahu ma'tamku waxa waaye isu imaatankaas oo la isu imaahayo ama ma'tam leeyahay ana meedka gurigiisa la isugu ma'tam ayaa laqaana ana ma'tamkaas waa nacab u dhihi jiray macnaha saas u dhihi jiray ilaahumay maalin kadib naqato يعني مالين تاس أو ميت كل سوي ماذا أم أتمنى ليه هذا هدور ربط مالين كذب لا مالين كذب تضبط حنا وقت ميت قدرت يسوي اللي سوي ماذا هو نعف هو اللي جمعنا الإمام الشافعي وطواني فقيه هو كان مذهب كأضواء مركا يسوي ما تاس ولا يسوي ما هاي ونعف صحابه وحدي غير كذا وحدي جيران حدان لمنه يعني ضد كنور الشيء صوته وحن كعب سنة أنت لقى قيليو أي نعي نو نغطه وبررتي نعث نغطه سي حذيفة وكاله إذا مت فلا تؤذوني يعني قف أي شيء يقول يجري معنا ساسوا عموما قف دور انتو ولا شيء كرا لمصلحة شرعية يجي مكبر بدينا إيو حوجا علماء وديدان لكن المصلحة الشرعية يصير له دوغو جنازة له جود كذا ومد سي إمام مع الرسول نجاش وكيل شاقي معاكم هذا جعفر إيو معاكم هذا عبد الله الرواحي إن ممكن تقصد متكون أنت واشاقي يعني هذا برار لو جيدين إنه المصلحة الشرعية لا شيء تبغى كبرنانته المهم قف كدور انتو waxyaabaha nagala rabo waxa waaye dadkiisi in aan anako dadku raashin loo sameeyo oo sabarsiinta yani isna'u li ali ja'far ki rasuulka yahay ja'far raashin usoo sameeya badar usoo diyaariya macna yani imaam shaafici oo dhijara maalinta oo dhintay iyo habeenkeeda in badar loo macnaha la si sunna waa dhijara imaam shaafici rasuulkana asaa amraba isna'u li ali ja'far yani faqad ataahum amrun yashghiluhum waxay mashquuliye iyo muruga ku dhacday raashin loo sameeyo dhihi jir idan qofka marka uu dhinto dadka laga dhintay sabar siino tacsiid waa ay ka sabar siino maaragtay qalbi weyneyno aakhira xasuusino qalbiga u dejino alfaad u sameeyno ama in la isu yimaado xoolo lagu cuno meeshaas waa xaaraan waxaa lamid ah iyaduna xaaraan kale ah in la yiraahdo quraan oo akhrino aan fiido u sameeyno fiido wala yaqaan saalix la fiido yaqaaneen مثلا قل هو انت كن قل هو الاخري انت كن اهل يراهدو لا اله الا الله اهل يراهدو اللي سيما قل هو الاخريو ايضا واسلو كله wax sharci ah oo islaamkaas oo macnaha rasuulka sugnaada ma ah qof markuu dhinto wax tiraya rasuulku wuxuu noo sheegay soomka iyo sadaqada مثلا من oo yaa sameeyaa ilmihiisa man maata wa alayhi siyaamun saam an waliyo soomahayn qof dhintay soona lagu lahay ama nadara lagu lahay
وليس كصوم رسولك ساسوير لو ما قياس قاعدة كر صلاة كتج مليده كرام ما رسولك ردو كذا مدهن ده ترى صلاة كدو كال أقبل منه لكن ده كصوم رسولك شيء رسولك على جبرها إلى شرع على قاعدة قرآن كي حديث صومه يعني رسولك حلي يجروح كسؤال يقدم لك كان أسئلة عالية كل بدعة ضلالة وشر الأمور محدثاتها وليجر الرمى وحوا يقدم لك يعني إذا شرع وحن كبره هنا رسولك وحنا شيء إن لقى السماي سوى كله نسحابي وكيري معناه إذا لما تي وحنا كسب بحكرة ها عليه كبح وكسد غير كرتا إذن وكسد قف كدنتي وحال الله صدقيها وما الله صدقيها لكن وقت هذا ودنتي ولا وريجها وقت هذا ودنتي صوتها وضد وما أتمكيه معناها نيا حد يسيس أنغان قف هل الدوا واجب سال الله سيف الله كلا تو كدي بالميس وحول بحينه أو صدقة يستينه صدقة المركز وجار أيضا لو أديهين تضبط تعسيم على سدحات ما وقت كده وقت يسكله سؤال وحي قانان وقت قاصود انتي وقت يسكله حول براها وعيدين نقيه حرام كلا نقيه ما بنانه أي وقت وارد كحبح أي وقت حد دعاء والفتر كده وحيا صار رأي كمتين لا دعاء وصدقي أي وقت صدقيها كحرن وقت جارها كحرن وقت كصدقيها دعاء ديسها كحرن صدقيها كحرن وين الله صدقيها سوتها شرعي وين وارد كأضوح بحصاها أضو وقت جار اللي فيرين الله بهيه صوتها waxyaabaha oo ilmaha lagu dadaalo la baraha waa inay qofka door inta amalkiisa oo saddex ayu macnaha ida maat ibn adam qata amal illa min thalath hakamida qof ilmihiisa oo soo ducay waxa soo baxsha macnaha inoo soo baxsha adoo marka in wax sadaqayso wal raba laakiin waqti uu dhintay ha ka dhigin todoba ha ka dhigin waqti uu dhintay ku ciidahan ha ka dhigin ay waqti wax bixi macnaha saas la rabaa waxyaabaha qof uu dhintay waxa tara waxa kamid ah in laga xajiyo waa laga xaji karaa أما هالنهار قف ضغيه هو بس ولا حج كرا حج لولا ولا حج كرا وحسقنا ضوا أما قرآن الله أخريه هلا جدوا كذا وحن دليل لهن وحتر معيان مركا أنت أصلا كسوك يعني كسو أرور هنا هذا وصلى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام